knn. koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan. haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane. wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane. intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan. warnimayo waxaan dhegaystay saakay dood dhex martay niman siyaasiyiina qolo waxay leeyihiin jubbaland iyo axmed madoobe waxaa wata kenya qolada kalena waxay leeyihiin dawladda Soomaaliya Itoobiya wadata marka waan yaabanahay aaway Soomaalidii warniyow adawaab lan hundurowbata yaa muwaadinku aaway heesli leeymi dheegne war waxa haysta Soomaali Keeyati Soomaali Itoobiyan miya maya waxa haysta Soomaali weewe iyo Soomaali salaamno war weewe iyo salaamno waxa ku jirine aaway Soomaaliya war laba nin oo doodaan wuxuu yiri ciidamada Soomaaliya xuduudka Kenya ay soo xirayaan xuduud ma Kenya kaliya la leedahay aaway Itoobiya yiri kale wuxuu yiri Itoobiya ciidamada jooga Salaambaase iyo baadhama ciidamada Itoobiya soo xiray buu yiri war Salaambaase iyo baadhama waxa waa xuduudka aan leenahay yiri Eritrea iyo annagu wadaaya wara in sheegday kalinkaawe kan todobaada maskansiyeedadu war federaal aan fadana soo baabilaabay weydii kalinka waxaadan ugu daalina abwaan maxamed cali kaariye allah u naxariistay wuxuu yiri sareedaha haday ku waarto haduu silciya dib gaaro samaanteediya xumaanteed Soomaaliya Soomaali baale war waxa la yiri taariikhdu waa maguurto maskaxdii fayowba ka macaashta waayaha 1960kii Soomaaliya markay xorriyadda qaadanaysay waxa jiray xisbiye taagnaa xorriyad uma bislin Soomaalida 30 sano gumaysigu hasii hayo haloo tababaro dawladnimada waa lagu takooro Soomaalida dhinacooday u qaad xisbiyadaas magacyo xunna waa loo bixiyay oo ay kamid ahaayeen daba dhilif iyo gumaysi kalkaal iyo barootalyan iyo gaalala joog iyo waxa laakiin waxa la yaab noqotay 30 sano markay xor ahayd Soomaalidu ayay hal mar burburto qoloba udub siibay aqalkii taariikhdii ay sheegaan oo lagu kohsanay marka la joogay dunto baabaaday marka ma waan intaasi wacyi noogu filayn iyo wixii ka dib dhacay oo imika ma waxaan leedahay isticmaar cusub lagu celiyo war hadday wali wadada isticmaarka ku socotaa xalay waan riyooday aryaa adoo soo jeedaan run ka waaye goorba riyadaadu been badana war Cabdullo beenta kuma riyooday waan ku qarwaahe maamul goboleedyada waad ogeed markii la isku qabsado waa timid waliba laba dawladood iyo saddex dawladood ka dhalanaysay hadda tii weyneed ayaa la isku haystaa xisbiyada mucaaradka ay maamul goboleedyada dawladda ka soo horjeeda waxay dhaheen bisha Juun hadii lagu heshii waayo doorashada iyo qaabka ay u dhacayso waxaan magacaabaynaa guddi doorasho guddigaasna wuxuu soo xulayaa baarlamaan kadibna madaxweyne dooranayaan madaxweynahaasna asaga sharci oo filada lagama celi kara ayay dhaheen marka aniga xalay waxaan ku riyooday laba madaxweyne oo mid nabadii nolol ay wado midna isbaysiga mucaaradka ay wadaan oo sidii laba digaag ilkaha isku cunaya hayaxaan kulahay riyadaad isay u socoto ma digaaga ilka lahay kula maray hadda wariyadaada waxaan ku soo xasuustay nin la yiraahdo Mustafa Martin oo markii Muuse Biixi la doortay Ingiriiska isku caleema saaray oo yiri ana madaxweynaha Soomaaliland ah war anina ridiis may baa ka xasuusaday Abdinuur Darmaan markii Abdiqaasim madaxweynenimo la dooradii anina madaxweyne ah number 4 ka eri war Abdinuur Maxamed Axmed waa agaasimaha warfaafinta madaxtooyada madaxweynena ma sheegan war maxaa u diiday inuu sheegtiyaa ka xiga war madaxweynuhu iska sheegasho maahan mawaalintii waa doorasho aroo sheegash hadii wax tarayso xidig Isaaraar waa sheeganayna shibnaga dheh argooyow Sheekh Shaakir waxa waa horu ka noqoday Shaakir soo khudbayo may baaray anoo ku hadlahaya madaxa hukuumadii hore ee Galmudug waxaan u tanaasulnay danta shacabka idibka waayaha ma lagu haayay midka hadda soo socda aawadiisa madaxweynamadii hilmaami war magaalada Mandheera waxa la yiri isgaarsiintiina waa dansan tahay wax dhaqdhaqaaqana kama jiraan xildhibaanadii ka soo jeeday gobolka Waqooyi Bari iyo shacabkiina waxay yiraahdeen Cabdirashiid Janan hanaga baxo xanta siyaasaduna waxay sheegaysaa in la geeyay wajeer armaandeeyow odayga cabaar bay qoraxda u daayaan marka waxaan u malaynayaa xildhibaanada dawladoodii ka soo horjeestay markay xamar yimaadeen in dhabarka laga sii taabtay waan soo dhaweynaynaa faragelinta dawladda Soomaaliya ee Kenya ku
samayday war waxa isbeddelka dawladdu ay ku samaysay waa ciidanka harmacad kuwii hore dhusmareeb loo geeyey waa la bedelo kuwa kala la geeyey walle haramcadow howlaa kuu taalla horta nimay anugu waxaan ogaa dawlad la doortay oo dalka ka shaqaynaysa dawladdii la doortaana doorashay ku tagtaa midii qore ku timaadna qorigay ku baxdaa maantana waxaan arkaa labadaas wax u dhaxeeya baabuur sameecada inta lagu xiray laga dhex shiday heesihii guulwadaynta guulaystayaalow heedha golato owradii sare xaggee gaari karayaan maxaa looga jeedaa war ahmed waranlow war mahayto dalkun tawradan isbedeli tawradatan barakaysan tawradatan barakaysan tilaawadii ay qaaday midheegne eebaagoommaday isaaqow siciid xaraw inya ku maqlo tilaawadii adigoo leh madaxaaga ugu yaraan daqar waa ku aali lahaay warnimaya waxaa la yidhi maskaxdiiyo garaadkiiya haddaan maanku talinaynin mabaadi'na aan lagu hagayn maamulkiiyo hawsha musuq maasuq lama waayay iyo waxaad masuugtaaye waana waxa martabadda nabaday maanta saan nahay warwal mooshiidii almajanuun fanuun hal eri jiinlayda maansada baryahan jeedi ma lahayn goortaanse jooja haddana waxay gu jiidaane shacabkaa la jeebaynayaa meeluu joogaba jaajuusba jaajuuska kale waa u jirnacaya aribaawe waxaa doontaa nin sheega puntland ah hooyadii federaalka farmaajo waa geesigii federaalka maa tiri war ma odhan mana odhan doono warnimay waxaa la yidhi naqdaayaha doojiyiyo dhacarta jiilaal baxdiyo haddii kas dhumow adduun dhigaal iyo kayd lahaa qofkii dhab u fiirsado caqliga u dhalaaliyo dhismaha guud iyo micnaha siduu u dhadhaaban yahay dhexdiisa waxaa ku nool sidaanay u kala dhammayn guntiisa u dhaadhaco dhugmada aadmigu la qabo xigmada dhuux inuu yihiyo iimaanku u dhowr yaho ilaah dhowraha ka hela dhibkiisuna wuu yar yahay dhibkiisana igu yar dhibkiisana yar kulaha in dhibaata igu filan faraqaan ku heesta war dadkaani xamaal iyo xoolo kaydsiya yaqaaniine xil ma yaqaaniin war warbaahinta imaaraadka carabta waxay qoraysaa in la joojiyo saldhiggii berbere imaaraadku ka dhisay war waa buwaalanta laamiga afgoo iyoonay muqdisho indhehay ama shaqadiis la rooji may dhow war muuse hantaraab ma nabad iyo nolol baa kor ka soo hantaraabtay warnimada waxaa la yidhi koronafirus waxaa ka faa'iiday maxaabiis ku xidhnay dalka iiraan hadda maanta waa xabsiga laga sii daayey 54,000 oo maxbuus aryaadhaha war ma haysiina dhallinyaro ku xayiran giriigga iyo turkiga intii u dhaxaysa waxay dhaheen gafuurkaa noo duubanoo giriiggana uma gudbi karno turkigana uma naqa karno hadda tahriibayaasha meel dhex ay ku go'doomeena garabkoora allaha galo cabdullow maxasan cumar baafaa kuu soo sheegay asagaa xuduudda ka soo hadlaayey war safiirka shiinaha soomaaliya u jooga wuxuu yidhi soomaaliya waxaan ka taageeri doonnaa ka hortaga koronafirus safiir shiina ka yimid karoona ka hortagiisa ma naqaan asagu yow noo keeni luushow koronafirus koronaha la sheegiyo kudushaha midkee daran lankii korontago wata korjay karkaray kulli jaba bilaayu aroo karood ku dilmee qasanoo maqlaaya ayagoo hadda ka cusub yahaye feebarii ka dhacay shiina iyo fakarka soomaali labaduba wax lagu faaraxiyo ma laha faa'iido warnamiya war mahaytaana madawiine lafta gareen waliba seeday diinsoor gabalka la leeyahay ciidankii diinsoor roogin godoodana magaalada shalhii hirdeen maday isaaq madaxweyne lafta gareen diinsoorow aad meeldheer wax aaday ma ka taqaan ku darsoo weliba diyaarad buu ku tegey siyaad safarow jira waana soo socdaa allaha soo aruursha soomaali aabbaheed aan maqli jira warwar ma haysiin baydhabo ciidamada ammaanka waxay ku qabteen nin jaakadii qaraxiisa isku xidhay hubkiisii qoryihiisina ay u diyaarsan yihiin ayaa guri loogu dhacay ayay guriga ugu galeen wargantaalka aan weli qarxin xaggee baa lala maaganaa yaa kaasu dhimasho u xaydxaydahaya laakiin dad badan inuu galaaftow rabay wareedhaa war ma haysaane xuutiyiintii ka dagaalamaysay yeman 35 xildhibaan oo dawladda yeman ka tirsan bay toogasho ku xukumeen hayahee ma shuutaa ma haas tagayo suuratu maa'iida ku akhrihaaya war shuutaha uga finan waa sheeca nimankuyona dhegayso waxay ku eedeeyeen inay lacagtooda ku bixiyaan la dagaalanka xuutiyiinta warheedinimaya war ma haysiine maraykanka iyo daalibaan waa kuwii daraad qadar heshiis ku kala saxiixda maantana donald trump wuxuu yidhi waxaan taleefanka kula hadlay hogaamiyaha taalibaan sheeko fiicanna waana dhex martay si fiicanna waa isku afgarannay waxaase la yaab laheed maanta afhayeenka daalibaanaa hadlay wuxuu yidhi maraykan waa heshiinay dhammaan ciidamada shisheeyana ma weerarayno laakiin kuwa afganistaan
afghanistaan waa weeraraynaa war ciidanka afghanistaan waa muslimiine daalibaan ma waxay yidhahdeen dhiigga muslimkaa noo xalaala ka kalena waa naga xarrimaya war taasi waa markhaati muuqda war anigu waxaa maqli jiray doqonufaalay taqaanay daqartaa niman baa qur-aanka iyo sunnada qaata laga waayey niman baa u qildaya wixii qaadir maanacay niman baa qof mu'min u qala qaabka xoolaha niman baa qarxinaya shacbigii qaaliga ahaa qorshayaal islaameed kuwaana u qasbayaane qandaraas kuwaa meelka qaba aan la qarinayn war maraykanka iyo daalibaan haddii heliyeen shabaabay maraykankana ma heliyaana dhiblayna dhaafo war waxaa la yidhi adoon khayr kaa dhididay dheemanta u haysta iyo dhitada gurigiisa taal walaal dhuquryaay ku jirin baryana saxabada u dhigan tahriibna u marin dhimbilo dhulkeennaa buuxa oo nimcadu waa dhoobantee dharaankiiyo xidho maryaha shaqada u dhalaandhilow haddii qabku dhooqa galo damiirkaa sii dhinmo sharafka guud baa dhumo qofkii sida baa dhinto kaskaa dhaadhaan noqdo cilmiyo dhakra aadmigo halkuu uga dheefsan laha dhibaato u luga qabto dabbaaldhoofshaa badane ha odhan anigoo dhakhtara miyaan dhagax jebi karaa shaqana u dhalaandhilow maalinba dhanka ay xigtiyo ka doondoon dhinac kasta dhoorro wareera dhimbilow daadshahaan maqli jira war abwaankun haddor sideetana takhaatiirta dhagax jibiye leeya jaaladhoobada anna dhagaxa isma weeye kii ka dhuuntoo dhibka diido dhaxalkuma lihid dhulka qoda hoos u dhaadhaca aynu dhereegne xaad uga reebe waryaa nabad dhulka lagu qotaa horta dalka ma ka jirta oo beera lagu fasho amniga ka shaqeeya naga taga dhulkiina tacbade shirkadda baraka waa shirkad ganacsi oo ku shaqaysa habka online-ka waxaana maalgashaday bulsho badan ee aadna ku biir baraka waa bishaaro baraka leh beesadaad u dhiibtaana waa badbaado bil kasta ku badanaysa waa business adduunyada ku ballaarta ee ku biir baraka online